إماراتك الرياض اللي صوت ضاهبة دولة الطلابة إقادة والطلابة أدو ونكسن إماراتك وعلى سودة واستماع وعلى ومدة الصوماليين وعلى ومسلمين وعلى وعربات مركا وعلى سودة واستماع إماراتس إيه ضدك أو أجانب تم كل إمارس ماهن كل إنجريان قباء iyadoo maalinta shalay dawladda federaalka Soomaaliya ay qaaday tilaabo ay wadanka kaga mamnuucayso dalkaas ku taga Imaaraadka Carabta isla markaana golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya kulana caadi ahayn oo isugu yimaadeen ay guud ahaan ku laaleen heshiisyadii dawladda federaalka Soomaaliya ay hore u la gashay dalkaas ku taga Imaaraadka Carabta ayaa shacab weynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho waxaana weydiinay fikirkooda ku aadan arrintaasi dadka shacabka aan wareysanay ayaa dhamaantood soo dhaweeyay arrintaasi iyagoo dawladda federaalka Soomaaliya kaga mahad celiyay go'aanka geesinimada la ay qaadatay isla markaana wadanka ay kaga saartay dalka isku taga Imaaraadka Carabta oo la aaminsan yahay inuu muddo fara badan fariigelin xooggan ku hayo gudaha dalka Soomaaliya sidoo kale waxaan weydiinay bal waxa ka dhigan tahay go'aanka maamulada Puntland iyo Somaliland oo ayagu ku dheeyay arrintan si weyn kaga hor yimid sheegana in dekedaha Boosaaso iyo Berbera ay dawladda federaalka Soomaaliya ka talin go'aanka golaha wasiirada ka soo baxana ay wax saameyn ku yeelan dooneen waxaana hadalladooda ka mid ahaa إماراتك الرياض اللي صوت ضاهبة دولة الطلابة إقادة والطلابة أدو ونكسن وما عرفت أنا عن كفر عنك الشعب عن إماراتك دباتو بالنجز لكن نبكي يلا وهي منطقة هذه إماراتك جت شقالة والله وشقين جري أما لا شقين جري وإلا حد لا شقين أما سردون ما هو شقين أما حمانتيس هو شقين دت كاسة جود كاسة لا بسارة إمارات دي البرية وهو حاول وحن قرية غير سلمان وصل بعيالين إمارات وكلية ما هن عرنتا دولة الصوماليات ما هن دولة معناها قبيل أما دولة مقدسة قائد يعني السنة أول سنة مركب بربرية بوساس وحنا دولة دينا أوامر تعصب السنة فلية صابته إيجا ولا لي هنا أجنبي وحميد ما قبته أجنبي حتى بأردن ولقينا هذا أجنبي ده بالسعتان ودن كائنا حصي ودينا دريمينا أنا قلنا ما عرفت كسماء إلا يبري إلا يبربروا سد حدين وحنا دولة دينا راعة Soomaali baa leh hal isku dar Allah Imaaraad oo kaliya ma ahan arka waxaan dhigi karnaa madaxweynaha iyo dawladdiisa intay jireen ee xukunka hayeen waa arrinkii ugu wanaagsanaa ay qaadeen weeye arrin hore loogu daahay oo maanta lagu guuleystay weeye mar Imaaraadku qarannimada ummadda Soomaaliyeed iyo haddii alla ku jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo dawladnimada ummadda Soomaaliyeed oo bridku ahaa maadaama ay dawladdeena garatay oo u xisaabtantay sidii qaramada caalamka ka jira ay u xisaabtamaan oo kale waxaan dhigi karnaa waa dawlad lagu faani karo waxaa waajib ah haddii ay diidaan oo ka amar adeegaan midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed iyo dawladnimada ummadda Soomaaliyeed oo ay yiraahdaan dekada ayada cadowga iyo Israa'iil iyo Imaaraad baa ka shaqaynaya in dekadana la xiro eeraboornada ay ka degayaan la xiro haddii amarka la qaadan waayana wixii ka soo degan la burburiyo إماراتس إيه ضدك أو أجانب تم كل إمارس ماهن كل إنجريان قباء إن لقى صاروا إماراتس ما كفر حسنا هاي ودك هذا النبض واعي لعكتي قاعدة لها نعم عسكرت عسكري إن ضدك المهر الرسيو وش الرسيو جيش عشان الرسيو أنت أجر سنة waxaan u arkaa Imaaraadka ay dawladda Soomaaliyeed ay naga raacdaysay waxaan u arkaa guul weyn oo ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay marka ehelba Imaaraadka waxaan lagu hayay nin danaysta ah nin cadow ah ayaa lagu hayay maana Imaaraadku wax la soo dhaweysto maaha waa cadowga ummadda Soomaaliyeed waa cadowga muslimiinta waa cadowga carbeed marka wax la soo dhaweysto maaha marka dawladdu inay naga raacdayso oo madaxda ka yahay Dr. Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed inuu go'aan ka gaaro oo Imaaraadka naga raacdayo waa boog aan ka caafimaadna Imaaraadku marka boqolkiiba 14 waa taageersan Imaaraadka nala ka raacday maxay wuxuu nooga faa'iideystay anagoo maxaa jircan anagoo qabiil iyo urur iyo wax ma raqiisa isku haysana ayuu nooga faa'iideystay maana Imaaraadku wax la soo dhaweysto marnaba ma ahayn inuu cadowga muslimiinta yahay nin walba oo ogay ninkii Imaaraad taageera taariikh madow ayuu uga tagay wadanka waarimaysi warakaaya ayaa la yiri Imaaraad ninkii taageera wadanka taariikh madow ayuu uga tagay nin walba waa dhimanaya bari hebel علاشي سوفير سري بيجي سوفير سري لوك الصومالي أيو إنسان يعني لقدين والأريا ما نسف أنا الأريا أول بولا يصدّه الأريا ولا يصدّه حدنا دولة ويكون مع السنة هنا كأريا أو يكرر عدس ويكون مع السنة بقول كيف سجاش بقول كيف بقول يكون مع السنة حدنا وحلنا ودن كان أنا كود حرة وإثيوبي كينيا
ma ogolna inay ku soo xadgudbaan hadda kore way maayeen inay ku soo xadgudubto Kenya waa tii laga eriyo badda ay xooga tagtay sidii haddana ay xooga tageen badda cas ay 20 kilomitir waa loo jaraa waa tii liira ma jirto hadda markaa waxaad moodaa in ay cagaha gadaal u dhigteen canaanta ee la canaantiyo si loo galay ma ogolayn wadankeena marna ma ogolayn in la kala jarjarin ma ogolayn imaaraad go'aan golaha wasiirada ay qaateen way ku degdegeen wayna ma aysan ka fiirsanin sababta sidaas uu leeyahay wax kaleetana ma aha research badan yani inaysan ku sameeynin oo maleena sababta Jubaland iyo Puntland far lagu ma hayo Somaliland go'aan goosad waa intaas bi xiriir la leedahay marka imaaraad iyadana tilaabo yani diblomaasiyada inay sameeyso oo ay goyso Somaliland Soomaaliga yaw ila waxaan inta waa siyaasad marka shalayna xasan sheekh maxamed asigana bare imaaraad oo dhigi jiray walaalaheena waa maanta miyay isbedeleen macna ani xiriir hadii wadan waa loo jaraa isdhigi karo waxa waa Ethiopia loo jaray sababtoo ah Ethiopia waxay qayb ka leedahay qaybinta sidoo kale tan waa cadowgeena si kastaba ahaatee dawladda isku taga Imaaraadka Carabta ayaa laga warsugayaa bal waxa ay kaga jawaabto go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ay kaga mamnuucday wadanka isla markaana ay kaga wareysay ayadana dhammaan bay burburisay heshiisyadii ay hore ula gashay Daahir Abshir Xasan KNN Muqdisho.